السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعل صاحب يال سود وهذا هالكل وهلال برودكشن وحيل موقال كيلا داوديال كاغا بوغل دولا علامadaha lagu garto saaxiibka dhabta ah. saaxiibtinimadu waa wax aad u adag in la sharaxo, balse waxaa xaqiiqo ah in haddii aadan baran saaxiibtinimada dhabta ah inaad ka dhigan tahay adiga oo nolosha aadan wax ka baran oo kale. noloshu waa meel aad u foolxul marka aadan haysan saaxiibo ama saaxiib dhab ah oo daacad ku ah oo aad dugaashato. dunida laylu ku noolahay xaqiiqatan way adag tahay in la helo saaxiib daacada marka laga soo tago kuwa badan oo laga mida ay la fahansaneen macnaha guud ee saaxiibtinimada oo ay u haystaan oo kaliya dalaysi. inkastoo ay adag tahay waqtiga laylu ku noolahay si dhow aad ku garan karto saaxiibka dhabta ah iyo midka danaysi, haddana waxaynu muuqaalkeena ku soo qaadan doonaa sifooyin aad ku kala garan karto saaxiibka wanaagsan iyo midka danaysiga ah. balse daawada inta muuqaalkeena aan guda gelin ku xusuusiya daawada in muuqaalka aad laagi loo saarto sidoo kale aad si shargareyso si ayaguna ay ugu faa'iideystaan macluumaadkan saaxiibadaada kale. dunida aynu ku noolahay xaqiiqatan waxaa adag ama dhifi laadir ah inaad aragto saaxiibo yeeshay xiriir saafi ah, xiriir aanan ku jirin dalaysi nooc kastaba ha ahaadee. saaxiibka wanaagsan waa midka kugu aqbala sida aad tahay, ciladaha aad leedahay. saaxiibka dhabta ah waa kan marlaba aan kugu qasbin inaad iska dhigdhigto waxaadan ahayn. saaxiibka dhabta ah waa midka fahansan in qof kasta uu leeyahay ceeb, sidaasi daraaddeed waa uu kugu qaadan ceebahaada, mana faagfaagaya ceebahaada oo waa uu duugduugayaa, waana uu ku dhiirogeliyaa, kumana ogolaado inaad isku niyad jebiso ceebaha adigu aad leedahay. saaxiibka dhabta ah maaha midka garabkaaga ka baxa marka aad ku jirto xilliyada adag ee noloshaada. tani waa mid ka mida calaamadaha kala sooca saaxiibka dhabta ah iyo midka iska dhigdhiga. waqtiyada mugdiga ah saaxiibada dhabta ahi ayaga ayaa ku iftiimiya jidka, halka kuwa kale ay kaaga tagaan cidlada marka arrin ay kugu cuslaato ama dhibaato ay ku soo food saarto. saaxiibada dhabta ahi waxay ku fidiyaan caawimaad intay awoodaan, sababtoo ah qalbiyadooda ayaa la siineen inay kugu eegtaan dhibaatada aad xilligaasi ku jirto. saaxiibka dhabta ahi kaama maseero marka aad guul xaqiijiso amaba aad xiriir abuurto oo aad ku qalacsan tahay, halka saaxiibka xul uu yahay midka kaa maseera ama kaa xumaada marka aad guul xaqiijiso. saaxiibada dhabta ahi way kula dabaaldegaan marka aad guul xaqiijiso, wayna kugu hambaliyayaan, mana ahi kuwa kula tartama. waxa ay ku dhisaan kalsoonida, way ku dhiirigeliyaan, isla markaana kuugu baaqaan inaad xaqiijiso guulo intaasi ka badan. saaxiibada dhabta ahi qaladka kuguma fiirsadaan, waa kuwa kuu sheega kaala baajiya qaladka aad ku jirto. saaxiibada dhabta ahi inkastoo ay ku jecel yihiin haddana kuguma fiirsadaan inaad qof dulmiso amaba aad qalad ka gasho ama xitaa aad ku dhaqaaqdo tallaabo qaldan. sidoo kale way ku cafiyaan marka aad qalad ka gasho, laga yaabee inaad dhahdo erey iyagu ay dhibsadeen oo ay aad uga xalaaqeen. saaxiibka wanaagsan waa kan kugu caawiya qaadashada go'aanada saxda ah. xaqiiqatan marka laga hadlayo saaxiibtinimada dhabta ahi iyo astaamaha lagu kala garto, ma aha mid lagu soo koobi kara ka hadal iyo ka sheekeen qura, balse waxaynu ka soo qaadanay oo keliya hadba qodobada aynu isleelahay waa astaamaha ugu muhiimsan ee lagu kala garan karo saaxiibka dhabta ah iyo midka dalaysi. fadlan haddii muuqaalkan aad ka heshay oo uu ku cajab geliyey laagi loo saar, sidoo kale la sheergaray oo saaxiibadaa la wadaag. mahad sanid.